laba kun iyo saddex iyo labaatan la marayo cunsuriyadda Soomaalida waxaa moodaa boqolkiiba 95 ilaa 98 inay weli soo marayso 18 November oo dhowr beri 5 beri miya 6 beri ka hor ah waxay ku aadanayd maalintii calanka beesha jareer weyne ama maalintooda khaaska ah calanka ay u sameysteen falcelinta markay muuqaaladii ay soo dhigeen falcelinta dib loogu celinaya ama waxyaalaha dadkaas loo qoriyay marka aragtaan aqliga ayaa diidaya haddaba ka faa'iideyso fursaddan oo ugu dir lacagaha Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jeceshahay. Assalaamu calaykum. Kiiska marka hore intaan u galin maalinkoodii dabaaldegoodii waxyaalihii ay kala kulmeen iyo waxyaalo fara badan oo rabo inaan maanta ka jawaabo iyo cunsuriyadda Soomaalida oo rabo inaan maanta dhowr meelood idinka tuso. Gabadhan waxa la dhahaa Xayaat Qurux. Waa ogeedeen social media muddo yar 3 beri 4 beri oo muuqaaladeeda trend noqdeen. isla markiiba xogaa in lagu yaacay la aflagaadiyay la xagxagtiba moodaa dadka qaar xataa markay social media u kala kaco muddo bil 2 bil 3 bil jaanis la jiray kadib baa dad ku dhigi lagu soo dhigi jiray laas gabadhan 3 days kadib waa lagu dhaganaa taas oo ku muujinaysa xogaha in Soomaalidu ay dadkan inay ku degdegaan ay jecel yihiin waxa kale oo kaaga daran horta reer comment waa mahadsantiin gabadhi waa loo hiiliyay waxa waa falowgeeda kor loo kiciyay cimaamad baa loo soo dhajiyay waa rajeynaya xataa cimaamadaas intaqaana in si fiican loo cimaamadi doono I don't know hadda YouTube qof hooyaa inay YouTube channel soo karin baa laga yaabaa YouTube hadda furto kale waxaan ogahay inaad si qurux badan u kala kicinaysaan dhalinyartii kale ama gabdhihii kale isku gafeen inay raali gelin bixi kiiskaas macnaha kiiskaas reer comment laan gacanta ku dhigay si qurux badan ay reer comment laan kiiskaas ma taqaana uga soo baxeen garab istaag fiican oo muujiyeen dhankaas Soomaalida ku amaanan yihiin laakiin haddana waxaan rabnaa inaan toosh ku ifiyo ama aan ballaqo banaanka inaan soo dhigo dad nagu sii dhex jira haddana oo stiil qalbigooda cunsuriyadda ay ka buuxdo maalintii 18 hadeer waxay ahayd maalinta calanka beesha jareer weyne horta waa hambalyeynaya hambaliyo soo daahday la iga dheh barnaamij kale aan kugu maqnaa meel kanaan toosh ku hayay macnaha oo aan marka hambaliyo soo daahday iga dheh horta waa hambalyeynaya beesha jareer weyne by the way waa heesaha calamada loo sameeyay waa heesta ugu macaan baan isdhihi karnaa ama si qurux badan oo ka ilaab loo qaaday muuqaaladii markay soo baxeen marka xafladii bay qabsadeen muuqaaladii waa la soo dhigay muuqaaladii baraha bulshada la wadaagay waxyaalaha la yaab kale marka oo aqligaaga u diidaya waxa kamid ah qabiilada kale markay calankooda u dabaaldegaan ama ay soo dhigtaan si qurux badan baa mataqaanaa loogu hambaliyeeyaa xifaaltan ku doono qabiilada xifaaltan baa ka dhaxeeya Soomaaliyeed laakiin si walba xifaaltan u jiro maalintoodii markay tahay oo dabaaldegayaan dabaaldegaas hebel from qabiilkaas hebel hambaliyo from shakal la wala suuq hambaliyeeyaa iyaga laftirkooda loo hambaliyay laakiin se commentiyada falcelinta qaabka daran ee cunfiga iyo nacaybka muujinayo waa meeshaas xogaa ku badnaa marka muuqaaladaas dib u dabagashid jareer oo 18 waa la soo dhaafay mise aqligii wali idan ma soo laaban fiir cunsuriyad toos ah meel aan loogu gaban xataa qofka wax yar oo xishooda kama muujinayo inuu waxyaalahaas kala qoro waxyaalaha midda kale tan inaan ka jawaab rabaa waxay tahay habi 6 saacaday ba soo qoraysaan in badan dhalinyarta waxay qorayaan habi 6 saacaday dadkan la yiraahdo beesha jareer weyne waa beel annaga naga horeysa Soomaalida kale inay ka horeyso waxa ku garanaysaa ninka dhalinyarta markuu Soomaaliya banuuli markuu soo idin la ciyaaray markuu 12 12 15 jir markuu noqdo ninkaas hal badan ka dhaxbaxaya hebel faryaamo noqdo hebel fuundino jaanika shaqo galay aniga qorshahaas dadkaas inay naga horeeyaan waxa ogaad Yurub marka imid ba ogaaday Yurub marka timaadid ilmuhu markuu soo kaco ama inuu iskool aado inuu shaqo aado ina shaqo ku jirto oo canshuur bixiye tahay ina iskool dhigto labaas maadmid waay hatta wax baranaysana waa lagu ogol yahay ina shaqaystano lagu ogol yahay laakiin dad iska fadhiyo oo wadamadan qurbaha ma jiro dad walba oo dabalaan waay dadkan ayagoo Soomaali joogay mar walba dhigood ubadkooda u qorsheeyeen meeshuu 15 jir ku soo gaaro inuu shaqo la gelinaya nin shaqaysto xoogiisa tabcado noqonaya Tanzania congratulations fiiri hatta even Tanzania waa takoor meesh u dambeysay in dadkii wadankii dhan laga saaro oo wadan kale ahaan loogu hambaliyeeyo fiiri aad bay u yartay qabiilada kale hadii eriga soo qorana 79 ribalay oo qofkaas lagu jafay arkaysa laakiin dadkan xataa dad ribalay u kala malahan waxyaalaha la yaab kale waxa la aqliga u diidayo 18 November ma dhamaatamiya
fiiri xataa waxaa moodaa in maalintii ay dabaaldegoodaas labadaas muuqaal ee kaasoo horbaxayo dhalinyartii inay qaar inay ku hayso culays inay ku hayso macnaha oo dhibsanayaan le 18 November ma dhamaatay miya wallahi in dalka xabad la idinkaga saaro hadiiba calan can leh waxaas bilowdeen qofkaas soo qoray 100% waxa uu qabiilkiisa inuu calan leeyahay waliba calankiisa uu dabaaldego oo jecel yahay in calankiisa maalintiisa loo dabaaldego marka waxaan dhigi karnaa Soomaali ma soo dhawa kaaga dara dadkan hadii xataa ay tabasho qabaan waa dhaweyd hadeer dawladda iyo general sheegu iyo waxa xogaa iska qabsi baa jiray hadii dadkan tabasho ay qabaan muusigooda iska tumanayaan maamo ku dhibayaan waa kana muusigooda iska tumanayaan qori aaki in la isdilo iyo kuma jiraan dadka sayid dabaaldegaya way dadkan dadka sayid dabaaldegaya way ayagoo wax tabasho qabsan gudbisanaya ayagoo wax tabanayo ay tabashadooda waxay ku gudbinayaan gurbaankooda reer comment-land marka aniga mid ay iga badbaadeen xayaad qurux hadii intii lagu xadgudubkaas ka aamus lahaydeen kadibna 18 November ay imaan lahayd waliba 18 November waa maalmihii gabadha lagu dhignaa loo hiilinayo way isku aad macnaha hadii maalinkaas dabaaldegeedana aad waxaana kala soo qori lahaydeen gabadhan garab istaageedan aad ka aamus lahaydeen markaas reer comment-land toos weyn ku qaban lahaa laakiin si muhiimadu waxay tahay horta gabadhaasna si kala ugu heliseen ina gabadhaas garab istaagteen u kala kiciseen waxa way teamka isku dhagnaayeen xataa raaligelin degdeg ah ka keenteen oo shamsi qaadeen macnaha waa fiicantii reer comment-land waa fiicantii laakiin si dhalinyarta noocaan oo kale ku dhex jiro markaad comment qaldan meeshaas oo kale ku aragtaan oo takoor ama cunsuriyad umada Soomaaliyeed qabiil kamid ah lagu takooriyay marka aragtaan inaad kulligiin reply u wada gashaan oo u wada jawaabtaan Allah idinku duub ina meeshi commentiga horta shamsi male oo kale commenti leh oo shamsi diilaan lahayn qofkaas oo shamsi wax laga qaaday male meeshaan ku soo qoraa habartiina u sheegaysin waxaan u hambalyeeyaa beesha jareer weyn waxaan leeyahay war guuleysta sharaf iyo karaama leedihiin waxa way 18 waxa way 11 waa idinka hadda kadib le waan ku xasuusanayna anaga naftirkeena soo xasuusiya dhowr bir intaan la gaarin ka hor waxa way heesaas ka soo duuba bilaadanana anaga calamadii aan ugu batay waxa way 150 calan isdayaacay waxa way qabiil kasta calan u leeyahay sanadkan marka ina maalmo ka horeyna soo xasuusan isku dayo idin soo hambalyeeyaan laha laakiin se ilaahay amarkiisa waxa la yartaaba waxa la soo diraba takoorkaas iyo waxa way commentiyadaas weerarka lagu qaaday waa ku qasbanaaday markii aan barnaamij ka sameeyo bulshadana ka wacyigeliyo dadkaasna u hambaliyo marka beesha jareer waxa la guuleysta reer comment-land iyo dhalinyarta Soomaaliyeed waxa la xishooda 2023 la maraya adduunka ilaahay qof Soomaali qof kale Soomaali kale cunsuriyeeyo meel ka qorantay malaha marka cunsuriyada inay joojisaan Allah idinku duwaayahay barnaamijkii maanta inta soo gogoynaya barnaamijkan qurux badan laga diyaariyay comment qurux badan la subscribe jaw